18 jir Norweji ah oo waqti kooban haystay laysanka ama kaarka gaadiidka lagu wado ayaa lagu soo waramayaa in lagala noqday kadib markii ay booliska ku qabteen mid ka mid ah wadooyinka degmada Sotre ee duleedka magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway. 18 jirkan ayaa lagu soo waramayaa in ay boolisku joojiyeen isaga oo ku socda xawaare ay ku qiyaaseen 97 kiilomitir saacadii, halkaasoo wadadu ahayd mid loogu talagalay ama aag loogu talagalay in ay gaadiidka ku socdaan 50 kiilomitir saacadii. Waxaana lagu soo waramayaa in darawalkan da'da yar markii la joojiyay ee la qabtay xawaarihiisana uu ogaaday heerka uu marayo, uu ogolaaday in laysanka laga kansalo lagana qaado, sidoo kalena lagu soo ogo kiis ku saabsan xadka xad-dhaafka ah ee uu gaariga ku wadayay. Waxa uuna sheegayaa taliyaha howlgallada booliska Kjell Bjørn Hegoy in xaaladaasu ay ahayd mid aad khatar u ah, isaga oo sheegay in xawaarahan aadka u sarreeya ee uu wiilkan ku socday uu ahaa mid isaga laftiisa iyo sidoo kale dadka wadada isticmaalaya iyo darawallada kaleba halis ku ahayd. Waxa uuna sheegay soona loogu talagalay in saacadii ay ku socdaan gaadiidka 50 kiilomitir ay tahay wax qalad ah in lagu socdo ku dhowaad 100 kiilomitir saacadii oo ah laba jibaar inta wadadan loogu talagalay. Wuxuuna sheegay in darawalkan da'da yar ee laysanka laga kansalay lagana qaaday ay tahay mid xaaladiisa iyo sidoo kale dadka wadada isticmaalayaba halis ku ahayd. Wuxuuna sheegay inaanan marnaba loo baahnayn in xawaare noocaas lagu wado wadooyinka, taasoo nafta dadka iyo sidoo kale darawalladaba khatar gelin karta. Taliyaha howlgallada booliska Hegoy ayaa sheegay in ninkan ay kala laabteen laysanka, sidoo kalena waxa uu intaa ku daray in ay booliska soo aadeen wadooyin kale oo ku yaala daafaha iyo hareeraha iyo gudaha magaalada Bergen, halkaasoo uu sheegay in sidoo kale nin mooto waday isaguna ay ku qabteen si xad dhaaf ah isaga oo mootada u wada, halkaasoo ay isaguna marsiiyeen ganaax iyo in ay ka kansalaan laysanka ama wadista mootada. Waxayna booliska sidoo kale soo istaageen wado kale, halkaasoo ay sheegeen in isaguna ay ku qabteen wiil 20 jir ah ka oo wada loogu talagalay in 60 kiilomitir saacadii gaadiidku ku socdaan uu ku wadayay gaarigiisa 86 kiilomitir saacadii, halkaasoo isaguna ay ganaax u jireen. Booliska wadooyinka ayaa si aad ah oo taxaddar leh wadooyinka qaybo kala duwan u istaago si ay u kontaroolaan xawaaraha ay gaadiidka iyo mootooyinka isticmaalaan, taasoo ay ku ganaaxaan in badan, qaar badanna ay ku waayaan wadista mootooyinka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan, maadaama ay ku wadayaan xad ka baxsan xadkii loogu talagalay oo ay sheegaan in ay naftooda iyo nafaha kalaba halis ku yihiin. Halka warka kiisa ugu door koron uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaan idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.